ku soo biir kanaalka sahanka dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum dhammaan akhyaarta sharafta leh ku soo dhawaada kanaalka sahanka dunida. Gaza waxaa lagu tiriyaa inay tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu da'weyn uguna faca weyn magaalooyinka Carbeed. Taariikhyahanadu waxay hayaan macluumaad la isku khilaafsan yahay oo ku saabsan magaca Gaza iyo halka uu ka yimid, waxayna ku kala aragti duwanaayeen magaca saxda ah sida had iyo jeer ka jirta magaalooyinka qadiimiga ah badankooda. Kuwa ayaa u arka magaalada macnaheedu inay tahay kala soocidda iyo takhasuska magaalooyinka kale, laakiin ilaa iyo hadda wax macluumaad oo sax ah lagama bixin magaca. Haddaba intaana gudagalin barnaamijkeena, fadlan subscribe saar kanaalka, gambaleelkana taabo si ay muuqaaladeena kuu soo gaaraan. Haddii uu ku anfacana muuqaalkani, fadlan like garee. Gaza ayaa markii ugu horeysay taariikhda lagu xusay qoraal gacmeed lagu qoray, gaar ahaan qarnigii 13aad. wax yar aan Gaza dulmarno. Gaza waa mid ka mid ah magaalooyinka Falastiin ee ku yaala xeebta, waana magaalada ugu weyn ee marinka Gaza, waxayna ka fog tahay caasimadda Jerusalem. Carabtu waxay ugu yeeri jireen magaalada Falastiin ee loo yaqaan Gaza Haashim. magacaanina waxaa loola jeedaa joogitaanka qabriga awowgii nabiga sallallahu alayhi wasallam, Haashim bin Cabdimanaaf. sidoo kalena magaaladani waa tii uu ku dhashay Imaam Shaafici. Gaza waxaa caan ku ahaa magacyo badan oo da' kasta ah. Xasaati oo ka mid ah reer Kancaan, waxaana loo yaqaan Khazaato, faraacintii Masar. reer Kancaan waxay aasaaseen magaalada Gaza qarnigii 15aad ee dhalashadii milaadiga, waxayna had iyo jeer ku tiirsaneed himilooyin badan oo nooc kasta oo gumeystayaal ah. sidaa daraaddeeda taariikhdu ma xusin inay heshay madax banaanideeda buuxda, maadaama ay gumeysan jireen Gariiga, Roomaanka, Fircoonka, Byzantiniya, Cusmaaniyiinta, Ingiriiska iyo qabsashadii Israa'iil. xilligii muslimiinta waxay ka xoreeyeen Gaza gacantii Saliibiyiinta, waxayna bilaabatay inay soo kobacdo oo ay soo koreyso xilligii gumeysiga Cusmaaniyiinta. laakiin sida ugu dhaqsiyaha badan dagaalkii labaad ee adduunka ka qarxay kuna hoos dhacay gumeysigii Ingiriiska. waxaan rajaynayaa in uu muuqaalkani ku caawiyey. haddii uu ku anfacay la wadaag oo sii gaarsii asxaabtaada kale. haddii aadan horay subscribe u saarinna kanaalka, hadda subscribe saar si aad muuqaaladeena dambe ula socoto.